kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaan idiin soo gudbin doonaa xasan sheekh maxamuud oo amar ku bixiyay in la weeraro guriga Cumar Finish laakiin guriga Cumar Finish inta aan la weerarin waxaan xogaa in soo gaaray aan ku haynaa in Senator Muuse Suudi Yalaxow oo daris la ah Cumar Finish in marka hore uu hubkiisa iyo ciidankiisa u kala baxay aagaasi haddaba maxay yihiin qorshahan ay dageen Muuse Suudi Yalaxow iyo Xasan Sheekh Maxamuud ee hubka dhigista loogu sameynayo Cumar Finish waanu idiin soo gudbin doonaa dhinaca kale warbixinteena intaanu ku guda jirno waxaanu idila wadaagi doonaa daawadayaal Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta magaalada Jowhar tagay isagoo ciidamo aad u hubaysan wata isla markaana halkaasi ka xarig jaray mashaariic laga fuliyay dhinaca kale waxaanu idila wadaagi doonaa kulamo xasaasi ah ayuu halkaasi Xasan Sheekh Maxamuud kula yeeshay siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe waanu idiin soo gudbin doonaa aadan madoobe hogaamiyihii shalay loo doortay koonfur galbeed oo hanjabaad u diray mucaaradka ee ciidamada duurka jiro waanu idiin soo gudbin doonaa inta guda galin marka koowaad soo dhaw muuqaalka la garay sidoo kalena si share garay si dad badan xogteena ay u gaadho waxgaag haddii aynu ku bilowno warbixinteena waxaa jirta xog soo baxaysa oo tilmaamayso in Cumar Finish gudoomiyihii hore gobolka Banaadir isla markaana taabacsan mucaaradka ciidamo la dul dhigay qorshahana uu yahay in laga qaado hubka iyo gaadiidka dagaalka uu haysto laakiin maadaama uu Muuse Suudi Yalaxow daris la yahay isla markaana Muuse Suudi oo loo gelin isagana aan loo geli karin Muuse Suudi Yalaxow waa saaxiibka Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku taageersan yahay Xasan Sheekh Maxamuud dhammaan tallaabooyinka uu qaadayo sidaas darteed Xasan Sheekh qorshaha uguma wajirtaba Muuse Suudi Yalaxow in la weeraro oo hubka laga qaado laakiin waxaa jirto farsamo ay dageen oo ah in Muuse Suudi Yalaxow hubkiisa iyo sidoo kale gaadiidkiisa iyo ciidankiisaba uu kala baxay degmooyinka Wadajir iyo Madiina wuxuuna la aaday Miranaayo san xogta ku heerno hadeertan marka waxaa socdo qorsho la doonayo in Cumar Finish lagu weeraro oo hubka lagaga dhigo iyagoo markaasi leh Muuse Suudi Yalaxow yani gurigiisa hadii la galo waxba lagama soo helayo sababtoo ah ninkan hubkiisii iyo gaadiidkii dagaalka meesha waa uu kala baxay si marka Muuse Suudiyana wax laga soo qaado loo waayo hadda u badato dhowr qori laga soo qaado isaga oo raali ka yahay yaa haatan waxaa loo sameynayaa yani wadadaas dheer loo marayaa sidii Cumar Finish loo xalaashan lahaa weerarka lagu qaaday iyadoo la leeyahay xitaa Muuse Biixi gurigiisa waa galna farsamada ay adeegsanayaan ogaada waxay leeyihiin xitaa Muuse Biixi yani Muuse Suudi Yalaxow xitaa gurigiisa waa galna sidee marka ku dhici kartaa in guriga Cumar Finish uu diido uu dhaho keyga lama soo geli karo waa qorshe isagana waa u fahamsan yahay waxaan xogta ku haynaa in uu difaac adag xirtay isla markaana uu u diyaar garoobay in uu ka hortago duulaan kasta oo kaga yimaado dhinaca filla Soomaaliya waaya xogaha in helayno haatan waxa ay tilmaamayaan daawadayaal magaalada Muqdisho xaaladdu way kacsan tahay mucaaradka abaabul xoogan ayay wadaan wali waa la suuq gabaraya waa tii uu lahaa macluumaadii maalin dhaweed mucaaradka kama aanan harin shalay waa tii ciidamo la dul dhigay Xasan Sheekh waxa uu ku adkeysanayaa in qori isaga kiisa aanan ahayn in uu san Muqdisho oolin yani uu ka arooyo qorshahaas in uu u socon doono in kale waa su'aal kale laakiin haatan waxa uu ku tala jiraa in uu weeraro xubno mucaaradka saaxiib la ama ka agdhow ama mucaaradka laftirkoodaba in la weeraro yaa qorshuhu yahay markana Jowhar waxaa maanta gaaray madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud si weyn ayaa halkaas loogu soo dhaweeyay mashaariic ayuu yani xariga ka jaray laamiyo la dhisay madaxtooyadii dhammaan arrimahaas oo dhan waxaa barbar socday kulamo siyaasadeed uu la lahaa hoggaanka dhaqanka Hirshabelle gaar ahaan beesha uu ka soo jeedo iyo Guudlaawe iyo dhammaan xubnaha kale siyaasiyiinta ay ka soo jeeda halkaas wuxuuna ka dalbaday odayaashii dhaqanka iyo siyaasiyiintii uu la kulmay in ay ka hortagaan isla markaana ay gacan ka siiyaan sidii loo qaboojin lahaa xaaladda ka taagan Hirshabelle gaar ahaan aan iraahday gobolka Shabeellaha Dhexe maadaama macuusley hubaysan halkaasi ay isku abaabulayso ana ku dhawaaqeen inay yihiin badbaado qaran isla markaana ay taageersan yihiin Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ninkii dhawaan la weeraray hotelkiisa Cabdullaahi Maxamed Nuur raggaas inay taageersan yihiin hadda marka waxaa socdo kulamo yani xasaasi ah oo Xasan Sheekh uu leeyahay
siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka ka soo jeedo shabeellaha dhexe gaar ahaan beesha abgaal weliba harti abgaal uu leeyahay war ha laga celiyo nimankan igu soo socday duulaanka igu soo ah waana qorshaha yani qayb ka mid ah qorshihii uu u tagay jawhar uu u tagay waayahay markaana baydhabo ninkii aadan madoobe ahaa ee shalay loo doortay hogaamiyaha koonfur galbeed Soomaaliya inkastoo doorashadaasi dhaleecayn badan ay la kulantay muran xoogan uu ka taagan yahay ayaa waxa uu ku dhawaaqay in uu gogol wada hadal u furay waxaana barbar socday hadalkaasi hanjabaad uu u diray xubnaha mucaaradka ah ciidamada taabacsan lafta gareen ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo waxa uu sheegay in cidii tabasho qabtana ay xalinayaan tabashadooda ay ka jawaabayaan cidii kale ee ka hortimaada nidaamkiisana in uu cagta bari doono ila daawada muuqaalka aadan madoobe حزبي دالك اللي بدلي حزب كاستن حال مده ويني وددي حزبي ده كوكمده يا ان شرحنا يعني حزب هذه حزبي مدن انا مداس مشرحن هاي الهي الف جي كوالي معانيش ما ايه قف قار له ودد مجر حزب كاست قفها شرح دي حزبي جي حزبي لها انا كومدهاي يا عدكي سوماليدي شعب كوفر بيد بدين شي هلي ساساك كوين دادك بار بوغانديد ويد رير بلو انت كوباهي رير بلو ولا غراون ايدان كقلدين ولا ليال ديغان كان ما يبغاها ولا فدرال سيستم لين قاددي deegaan kasta shacabka deegaankaas leh qabiil ma aha koonfur galbeed qabiil gaar ah ma leh ma jiran si runtii digil marfle ah laakiin Soomaali oo dhan iyo deegaankan deegan qof kastan xuquuqdu leeyahay deegaankaas leeyahay yalla ka sharaf u hay luku yaab dadkii deegaanka badan ani madaxad an badadan may weeli ya dimuqraadiyad basaase ma hina yaani deegaan reer ko gaaray leey ma leh reer ha ka duulina ma leh deegaanka ta ka hor yama dalka burbursanyi yama maleesiyad ha ka duulen هو بدد بديدي أنا كوكو هاي بدل لما ذي مثلاً نون اللي جرى حتى هو حد جذب كوي أفكك ولا ينقدان لكن دولة ما دي أقول عنهم دولة ما ده هرشي ليش ما نقدر كور دولة ما ينقدر الشعب كصوماليات أطلع دي الدولة نقدر جيك حركة كسديرني جيك قبيل ينسروناي فهلنيس دلا إلهي نبي الحمد لله جيك الدولة ده أنا دولة ده نقف كستا صومالية كجر دولة الصوماليات ثلاثة شعب كصوماليات أنوار كله سياسيين أنوار كله ميل بقولين أنوار الناس الجرم ده ما هنا ما حتى هوب أرد إذا ما دن أو ديجان هكوجيت هوب ربلي ميل إنك دم بيتوسعين نظام كدولة ساد له حدي قف كيف لو سيدي جيك اللي إن شاء الله ضنا قبيل ندل كل ندق هذا قبيل كان هوب كوي لدي لان كيف لو إذا أنوار نيكاس للدولة مدديدهم ونوالي أقولاني نظام دولي أو فدرالي أقولاني هلسك الصومالي قال لي ده كيف دياكم مثلاً لبعض إيش أنت قفوت أو أنفدتي أو مركي هراك ده كيشيش هرناي الصومالي دي جبهدوي ماذا هذا هاي يكون مثلاً وليها أقبلني إني جبهنا من لطور دولة نما لقاها دولة ده سو فدرالي ديجان كست يعني الشعب كله هاي معمول هوسس وبصداو يدور هربلن هاي هو بهر كلي دقيقة ديجان أو سلي دقيقة شارك أقولي لكن هو لسه دقيقة ده كده دقيقة حرمت كبار ده ثلاثة لسه لها معمول كهذا ده دجي إلى هرتول الدير الشعب كله يديك قبض الله حكي دولة أو هذا أمريكا تريا ملتري همامولاي والحماري جاي كمان لفداي شعب سومالي أو ثلاثة دولة فدرال أو حلب إيوه دولة قبل هذا الشعب كدور هذا أني لنا كذا يهدي لك يقول يسدي فصار هذا حكم ده تصدرك سياسيين تحانس كويت ياو كار كذا أنقول ديجان ما من يسوع ده ما أنا ما أقبل الدوم لكن مالي أقولنا دستور كدال كلين لكي نظام كسومالي من نمديه دستور كني اللي هو قاسم شروط دال كلين هو قاسم دتقول على سومالي أسحر ميان وف كستن واجبات اسم الداس أرق ده الشعب هل صار دي أني لك احترام وأنا كي احتراما وأنا بدي أرق ده أنت كوف كل يومين احترامني وني لني احترامه فلان مرك ولا ليال ولا سكدت سيشه إيقوري والكي ويديو رماتي وف كريو ده بعده واي ورين والمك ويديان دنا متكورن ولا يبقى أنتيج الشعب كأني إيدينا سحلال نماء وأنا مدين وأنا هليسن قلادات كدينا كسار شعب نبت كنول برواقة كنول وأرد يسدان إسجيل دين مكسته نبت لك سيدا ولا حتى تيجنو بيدهم مدل الروج أسمدكم بالجارك بورها كبيبد عليهم كلهم ديارة لك سيدا هاي تاسمي دولة من أقداسه ولا روجون ده كويرواي أما مين دور كايا أما توم قفل الجلية جدك ماذا ليدا تساين جدك هيرين يا مال سيدا كور نحن أول تاس مكان ولا ذنب بلاهير دولة شعب شيء إن إديغس أما شو كشجعيس هرمر شو كشجعيس يا نقدان مرك ولا عليال ولا بأنباهنا جودهان شعب ككفر قلبيت سياسيين دتك أغوني هنا ده أودياش لكن كأول لف نبر شعب كنه
كل شيء ما يبقى قعدت ذي وأنا جيك باقي إياه نبت إمنما دب هجيسين إني كبار شقينا قعدت شقي كاسو إيه ما سنتين